waxay isweydiinaysiin baan u malayaa ninkan maxaa dharka dadacsan maanta u xiray talow miyuu waalan yahay maamaanku wax ka qabaa maxaa haya maanta waxaan ka hadlaynaa dadka walaalaheena ee dariiqada fadhiya ee aan u bixinay dadka waalwaalan waa dad ehelkeena waa dad hooye aabba waa dad walaalaheena waa dad nagu dhex nool waa dad bulshada waddankeena ka mid ah marka waxaan ka hadlaynaa dadka sidee u nool yihiin sidee wax u arkaan sidee wax u la qaban karaynaa قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء ما أنتم حنكهل لنا حنونها كمدا حنون كان مجلس وحويان سكيزوفريني ولا جويرة في فرانسيسكا في أمريكا وحلو جويرة سكيزوفرينيا على هذا مركا dadka waa dad dariiqadaas ka fadhiya badanka wadanadeeni oo marka dariiqa socotid waxa arkaysaa yakiyo dhibaataysan ma arkaysaa yakiyo dharkaysitaan iska daay waxay cunaan haysan ceedu ay ku dhacday ay aad u dhibaataysan yihiin dadka badanka markii xaafaduhoodii ay iimidaan ama dad ay garanayaan ay u tagaan waa la iska dheereeyaa waxa laga soo qaadaa sidii xawayaanka kale laga soo qadaa aabihii waxa arkaysaa wale warninka waa laga kaxeeya oo naciibsanaya qaarkood hada marka waxaan ku leeyahay aabbo iyo hooyo hadii ay maqlaysiin dadka hadii ininka niga mid yihiin sida waligeed marnaha ka soo qaadina soo dhaweeya dadka wixii wax u qaban karaysiin oo qabta Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ilaaho nadil oo hana doorin horta mahmahda aad u khaldan tahay waxay ugu khaldan tahay waxa weeyaan dadka ku mahmahdaa in ku khaldameen waxa laga soo qaaday dilmadii ayaa la iri way ka fiican tahay badlimada ka fiican xanuunkan waa laga bogsan karayaa waxa xanuunaha kamida waa laga bogsan karayaa marka xanuun hadii aan aragno dawadiisana Ilaahay soo dejiyo xanuun kastaba dawadiisa way jirtaa marka horta taa intan xarun aan aragno waxaan intuu yahay xanuun aan marka dadku isku tagaan qof kastaba ha noqdo sida qofka loo daweyn lahaa haba yaraatay marna inta laga soo qaadin waxaan qofkan xanuunka haduu ku dhacay inta u dhamaatay noloshiisa intay dhimashada ugu fiican tahay waqti yar uu haray dhimashada oo haduu iska dhintana dadka kale ay ku farxayaan dhimashadiisa marka aan isku wada tagno dadka walaalahayo sidii aan wax ugu qaban lahayn wadad naga mid anaga oo loo gargaari karayo insha Allah su'aal baa isweydiinaysiin oo ah dadkan xanuunkan ku dhacay ayay noqon karayaan talow sideeba xanuunka loo qaadi karayaa dadka cilmiga ku takhasusay xanuunkan waxay leeyihiin saddex siyaabood baa loo qaadi karaa iyo siyaabo badan saddex siyaabood baan soo qaadaynaa tagu horeysa waxay noqon karaysaa hadduu ehelkiina qof uu leeyahay xanuunkan aabaha noqoto hooyada ama dad ku dhow ehelkaaga waa qaadi karaysaa adiga 40% 50% xanuunkan waa qaadi karaysaa ilaahay naga nabadgeliyo tagu horeysa waa taa weeyaan talabaad waxay noqon karaysaa bulshadan aad dhaxnooshahay baa ku keeni karaya xanuunkan hadallada kale yihiin baa ku keeni karaya sidii kula nool yihiin baa ku keeni karaysa xanuunkan iyo si kula dhaqmayaan marka talabaadna waa bulshada ayaa ku keeni karaysa xanuunkan tasdaxaadna waxa weeyaan mukhadaraadka hadii ay qaadatid uu ku keeni karaya xanuunkan waa xanuunka kugu dhici karaya walaalkay walaashay ilaahay naga wala badbaadiyay mar labaad iyo mar saddexaad xanuunkan marka saddexdaa shay baa ku keeni karaya ugu horeysa waxa weeyaan waxa ku keeni karaya dhaxal bay noqon karaysaa hooyada aabaha waa ka dhaxlan karaysaa ama dadka kugu dhow qaraabada talabaad waxa weeyaan waxa ninka ku keeni karaya degmada dadka la dhaxnooshay saddexaadna waxa weeyaan waxa ku keeni karaya mukhadaraad haye su'aal kale la imanayso xanuunkan qofku haduu hayo si ku garan karayna waxa lagu garan karaya xanuunka qofku haduu hayo tagu horeysa waxa weeyaan waxa arkaysaa wuxuu maqlay horta qofku goor codad jirin buu maqlayaa wuxuu arkayaa wixii dadka arkin buu arkayaa ininka masalan anu kursiga ma fadhiyaa maanta ininkan eegaya kameraga eegaya isagoo haduu qof maanta xanuunka hayo haduu hagan fadhiyo
wuxuu oran lahaa dadkan dariiqa marayuu la yaabi lahaa horta dadka soo eegaya isaga ayuu oran lahaa war dadka aday ku soo eegayaan oo waxbay kaa doonayaan way ku dhibaataynayaan dadka wax kastoo qof kastoo isagoo soo eegaba waxun buu arki lahaa codad buu maqli lahaa oo kale war dadkan way ku nacaybsanayaan war waxaan waa lagu kaa nacay codad dhibaya markii kaste oo hadallo xunxun ka oranaya isaga ayuu maqli lahaa taa waa talabaad weeyaan Waking up now. The phone waking up. Don't answer, they'll know. They know who you are. tasdaxana wuu arki lahaa waxay dadka kale arkeen iminka masala anu kursiga ma fadhiya isagoo kursigii la sii dhacayo arkaya geedkan garab yaala ayuu arkay geedkii ku soo dhacayo ka baxsatay bulay marka wuxuu arkayo iyo waxay dadka kale arkayaan isku mid ma aad iyo aad bay uga duwan tahay marka xanuunka tagooraysa lagu garan karay waxa weeyaan codad jirin buu maqlayaa iyo aragtidii wuxuu arkayay ku dhan ayaa ka dubnaanaysa dadka kale wax arkayaan taa waa tagooraysa talabaad waxa weeyaan shucuurtii baa qofka ka dhimanaysa shucuurta maxaan uga jeedaa maanta ehelkuna dhex nool yahay qosalkii baa ka dhamaanaya waxa ka dhamaanaya kalgacaylka dadka uu qaba ka dhamaanaya waxa ka dhamaanaya islaantiisa jacaylku qabay hooyadii abiga jacaylku qabay waxba haba yaraatee jacayl uma qabo waxba haba yaraatee naf uma hayo wuxuu doonayo haba yaraatee ma jirto marka dadka eegtina badanka waxa indhowga ka dhex aragtaa waxba la'aan waxba haba yaraatee waxay dareemayaan ma jirto saddexaad waxa weeyaan badanka lagu gartaa dadka noloshoodii waxa ma qabsan karaya kaba soo qaad maanta adaa ka tiraahdo cunto karsan kare ma jirto iskoolka dhigan kare ma jirto sheekada iska badaa wax kale sheekada kula sheekaysanayo male dhamaad blow male dhamaadna male sheekada iska sheekaysanaya qofka ma fahmayo dadku waxay ku sheekaysanayaan dadkii ma fahmayaan isagu wuxuu leeyahay qof sheekadiisu ay haba yaraatee sal ay ku salaysnay ayuu arkayaan dadku tasdaxana waa taawayaan waxay yiri ugu horeysa wuxuu maqlayaa dadku waxay maqlin talabaad waxa yiri dareenka ka dhamaanaya tasdaxana waxaan yiri haba yaraatee uu qofkii wuxuu qabsan karay ma jirto saddexdaa shay baa badanka lagu gartaa dadka xanuun kale marka xanuunkan saddex qayaabood ayuu soo maraa qaybta ugu horeysa waxaan u bixiyay walida fudeed waxa weeyaan waa waqti qofku in yar isla sheekaysanayo shaqadiisii iska tagayo iska soo shaqaysanayo dudkiisigiisii iska soo tagay tacliinta iska soo dhiganayo waxa arkaysaa isagoo in yar cod buu yar maqlayaa uu jawaabayaa dadka kale waxay maqlayaan isagoo in yar isla sheekaysanayo maqlayaan marmarna wax yar buu arkayaa qofka uu iska fiican yahay dadkii uu la sheekaysan karayaa sheeko caadi u wadaa waxa uu qabsan karayaa wax yar buu maqlayaa marxaladda ugu horeysa talabaad waxa weeyaan marxaladda labaad qofkii dadkii uu ka sii dhaxbaxaya waxa arkaysa maalinta ka sii dambaysa isagoo dadkii ka sii dhaxbaxaya arkaysa oo cidlo doonaya markii kasii iska joogo wuxuu doonayaa kali noolaashadiisii kali nolodka buu jecel yahay oo dadka uu nool yahay baa dhibaysa nolosha aragtidooda dhibaysa sheekadooda dhibaysa wax kastoo dadka ka yiraahdaan baa dhibaysa taa waa talabaad weeyaan marxaladda labaad oo cidlo markii kasta doonaya intuu joogo marxaladda saddexaad ee marxaladda ugu xun ay tahay waxa weeyaan qofkii isma kala garanaya hadid haba yaraatee wuxuu cuna ma garanayo meeluu saxda ma garanayo wuxuu ku sheekeynay isma kala garanayo waa marxaladda ugu xun ta ugu halisayna waa taa weeyaan marka walaalkay iyo walaashay daawanayso waxaan ka leeyahay marxaladda ugu horeysa iyo marxaladda labaad qofka haddii aragtiin qofkiiyo isla yar sheekaysanaya in yar qofkiiyo wax yar arkaya qofkiiyo wax yaroo dadka kale arkayn waxaynaya la yaabo wax saaya codad maqlayo isagoo hadallo isweydaarsanaya isla markaaba wax u qabta hala sugina marxaladda saddexaad intuu gaaray walaalkay walaashay marka waxa loo qaban karayaa qofka insha Allah ilaahayna insha Allah waa caafin ha u duceyno dadka insha Allah marka saddexda marxaladood ayuu soo maray qofka Franciscan aan deganahay waxa la yiraahdaa wuxuu ku dhacay xanuunkan 600 oo kun oo qof ku dhacay xanuunkan aad iyo aad bay tirada u badan tahay 600 oo kun oo qof badanka waxa la yiraahdaa boqolkiiba 40 waxay doonaan dadka intay naftooda dhibaateeyaan bay doonaan intay naftooda kaga takhalusaan bay doonaan waxaan sa u leeyahay wax kale ma ahe waxay istaagtiin mar was digtiin qofka noloshu ku nool yahay
ka yar fikira bal waxaad daawateen baan u malayaa filinyaasha cabsida waa daawateen baan malayaa qofka wuxuu ku nool yahay filin cabsiyu ku nool yahay maalintii kasta marka uma iman karaysid oo kama oran karaysid war diintu waxay tiri hay isdilin bay kaa tiri joog qof dhigalaha la hadlaysa marka inta diin uu ku oran waxaan bay ku tiriye waxaan horta qofka wuxuu qaban karaysid qabo marka aragtid soo maankiisa degan marka ula ima diintu waxa bay kaa tiriye waxa marka waxa ka qaadan karaa marxaladan ku jiro waxba ma fahmayo sidoo wax u arkaysid uma arkayo waxaan maqlaysid ma maqlayo nolosha adigu ku nooshahay isagoo kuma nool marka hawle iiban diintu waxaan bay ku tiri diintu hay isdilin bay kaa tiriye hay isdilin taa kuma fahamsano horta wax uu la qabo maskaxdiisa wax kala qabo marka aragtid isagoo dadkii caadiga soo noqonaya marka diinta ku waan ma inta ka sokayso horta isku dadaal sidoo maskaxdiisu ay u ku soo noqon lahayd sidiisii hore uu degi lahaa boqolkiiba 10 dadka way dilaan oo naftooda ka takhalusaan marka walaalkii iyo walaashay daawanayso adigu mas'uul baa tahay maanta sidoo rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri kullukum mas'uul wa kullukum mas'uul an ra'ayatihi marka qofka waalan hadii uu helkaaga yahay qof saaxiibka uu yahay qof aad garanaysid uu yahay anoo iska soo wadaagteen aku daawatid ay istiraadid aan waqti uma hayo ay istiraadid aan noloshaydan ka soo baxaya ilaahay ku weydiin maalinta qiyaamaha noloshu waa sida qof waxa arkaysa mar faraxsan qof waxa arkaysa mar dhibaataysan marka hadii qofka u gargaareen waqtiga oo ugu dhowdahay adigu digoortiba wuxuu qaban karaysa ayuu kalena u gargaaray marka adigu walaalkay walaashayo wax u qabo qofka ilaahayna ku qaban noloshaada saga ku hagaajin noloshaada inta kala hadhay ku dhan saga ku fududeey noloshaada inta ku dadaalaysid walaalkaas wax u gargaari lahayd saga ku gargaaraya insha Allah waxa arkay doontaa noloshaada ku fududaata walaalka u fududeey nolosha marka uu fududeeyay wax u qabatid walaalka noloshaada ilaahayna saga isxil qaadaya oo ku fududeeyna noloshaada xanuunka maskaxda waalida iyo waxa jira badanka xanuuno badan baa jira maanta waxaan soo qaaday xanuunkan Francis lagu yiraahdo schizophrenia amba Mareykan schizophrenia waxa jiri karaya xanuuno badan oo kale way jiri karayaan midalan waxa soo qaadan karnaa xanuun ku dhaca asaguna dadka oo badanka dadku waxay ku nool yihiin farxad amba dadaal badan in ka soo qad qofku uu shaqeeyo waxa arkaysa isagoo shaqada ku dadaalaya marna waxa arkaysa isagoo qiiroonaya oo xirxiran oo naf waxba u hay oo sidaa isku bedbedelaysa marna uu dadaalaya marna uu qiiroonaya marna uu dadaalaya marna uu qiiroonaya marna uu dadaalaya marna uu qiiroonaya marka taa weeyaan xanuunka labaad uu jira xanuunasa marka xanuunadu kala badan qof kasto maanta aan aragno dhibaataysan waa inta isweydiino su'aal wartalow xanuun ku qaba qofkan xanuun horta soo ogaano markaan soo ogaano xanuunku yahay qofkan uu qabo ha u goyno dadka u cilmi ku takhasusay ha u goyno ha orano war waxaan ka shakiyo qofkan xanuunkaaye waa kane wax la qabo isagoo intii insha Allah intalkiisa ku dadaalo waxa aanu aaminsan yahay insha Allah wax kasto loo dadaalo waa la gaaraa maanta dadka hadii aan qabano wax waan gaari karaynaa waan hagaajin karaynaa waan u qaban karaynaa wax oo insha Allah ilaahayna uu nagu asturi marka walaalkay walaashayo dadka hadheersan britole videoga marka dhameystid dadka hadii aragtid waxa istiraadaa war kugu dhici karaya xanuunku adiguna sidii wax ugu qaban karaysa biyo yar iska daa wax kala hadda siin karaysa waxa daa u qaban karaysa qabo ha ku daaban insha Allah ilaahay noloshada ku fududaan waxa isweydiinaysaa oo maraya sidii hay wax u hagaajin kareynaa sidii Ibraahimow dadkan wax la qaban kareynaa insha Allah waxaan ka hadli doonaa videoga soo socdaan ka hadli doonaa waxaan ka leeyahay walaalkayo dadkan u gargaarno insha Allah ilaahay noo gargaari waxaan ku rajeynayaa maalin noocan ama haween noocan wanaagsan insha Allah